بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما هو سلام يا شدو صوماليات وعبسنا جنتلمان سودو هذا كل عاوة طبعا ووقت ضمبه يقرأ عليه هذا دمانتين ميلا بسكنتين بسودو هذا رقية دمر بعض يدبن سلام يا بريتان إن شاء الله تعالى أي أن أوفا هاي أما فصح هاي بقى طبعا marka waxaan u soo galay inaan in yar halkan horta ka idhaahdo waan bulshada Soomaaliyeed bal taban ilaan kulay waxyaabaha qaar ba mashaakil kugu abuura ama urugo ilaa maanta taban asaasan wuxuu weeyay oo aan guudkaasaan wax soo fiirinay wax alaala waxaan ka digo 24 saacadood walaalayaal 24 saacadood had iyo habeen aan ka dagaalamaya barta uga qaylinaya ba toos u arkaysa aw Axmed Ducaale aad baan ku salaamayaa soo dhawaada markii koobaad horta dhamaantiin aad baan idin salaamayaa meel aad ku sugan tihiin bulshada Soomaaliyeed walaaladii aad aan u jecelahay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh balsanimay aan carruurxumada iyo urugada Soomaaliyeed haysta maalinba maalinta ka dambaysa waxaad arkaysaa waxaad ka yeeqsootid wax magacaaga ku ciyaaraya wax karaamadii ummadda Soomaaliyeed ku ciyaaraya wax ku bahdilaya ilaa maanta dhorta waxaan ula socdo weeyay website-da yar xun ee ku hadla afkan qolyahan Hargeysa iyo meelaha maalmihii ugu dambeysay aad baan ku salaamayaa Xamse Sheekh Usmaan horta waxaan sidoo kale isna aan uga hambalyeynaya walaalkay oo iga yar Axmed Cabdiraxmaan Aadan Axmed Xiis darbaan oo taban maanta isna arooskiisa nooca ka dhacay magaalada Hargeysa maanta meherkiisu ka dhacay magaalada Hargeysa dabcan oo walaalka kiiga yaraada ahaan iga yaraa ah isaga iyo reerkiisa baa Allah raxmaanka ha karaameeyo ha barakeeyo waxaan leeyahay barakallahu laka wa baraka alayka wa jamaa baynakuma bil khayr aw fil khayr waxaan kaloo mahad celinayaa dhammaan asxaabta halkan igala socota ee iyaguna u soo duceeyay ee farxadda nagala qayb qaatay haddaan inta hoos uga daado waxa caawo xilligaa soo jeediyay ama xilligaa live-ka soo geliyay kulli min gabiyaa wuxuu afku wuxuu la xoogay magliga xawda ka jira taban waynu hadlayna oo Soomaalida dhibaato far badan ma ku dhacday qaar kana xagaas ka soo hadlayaan aamusimin ninkan lagu magacaabo anigu Muuse Dambiilan waa hadalka in laga berbera ma aniga walaal wax layguna dadkanba waxaan isku haysanaa 24 saacadood dadkan maskaxda laga haystay maskaxda laga gumeeyay ee aan chief iyo joog buu diiday wallahi marka qaar saado Allah raxmaanka horta way dhacaysaa chief iyo joog buu ku diiday oo halkaan ku ka daawanaya waxa Soomaaliyeed dhaweyto qaar badan raali ahaada intiina kale de wanaagsan ee qalbigooda fiican war waxba lama qarinayo wallahi aan ma qarinayn maalmo dhaweydo Muuse bixin kale ku magacaabaan maadarkaay Muuse Dambiile iyo kooxdan lahaada Hagbelaan ee sheegaan uu tagay meesha lahaada Jabuuti qaylis loo ogsaday qaylo macquuda meelaha joogay Facebook-da isticmaalay markay Facebook-da ku jiraan noqda amxaarada bilaa calaykum shargareeya inta Soomaalnimada jecel walaalayaal anigu wax kale ama runta wallahi ku dhimanaya ama aan isku nacno ama aniga Ilaahay baa igu jecel iyo Soomaalinimada iyo ummadeeda Soomaaliyeed iyo wanaaga Soomaaliyeed ayaa runta igu jecel runtaana jecel taaqadana iska xidheeyay halaada waayo mar dhawaan soo yara galay walaalayaal dad Soomaali oo walaanahay oo Djibouti ayuu tagay ninka la hada Muuse bir waxa jira wax la hado international law sharciyo caalami ah jira indhaha iska dadayaan oo runtay diidayaan mood runta magan istiidsiba ku jirtay gabay u lahaa ninkan odaga Hadraawi ninka dalawadiisii duhurgeed ka seexday daytay sida runta magan istiidi markuu ragdeeda dusha kaga dhacay runta magan istiidsi runta way istiidsinayaan maalmin dhawto waxay ku wareegeen Djibouti calankii Soomaaliland ma ay daba dhigin website-dooda ruuxan xulay ka soo baxay Hargeysa meelaha nasiib darrada kale jirta kala yiraahdo hadhownaag neeyso dan waxaan waanu daayo waa full of nonsense
buuxa maskaxdeeda ka daadigi waayey oo ilaa maanta dhan aan saa weegi safarkiisa waan la socdaa oo aniga waxba walaalayaal si guud Soomaaliya dalkayga oo dhan iyo Soomaali meel kasta joogaan ninka la socda baan ahay khaladaad ka dhacaya Kenya iyo Soomaaliya dhibaatada lagu hayo NFD joogtay iyo Wajeer iyo Gaarisa waan ugu waan la socdaa dad kuma kooban qabiil iyo reer oo kooban Soomaalida joogta Djibouti waan ugu dhibaatooyinka haysta kuwan kilka shanaad sorry kilka shanaad waa magac guuleystay afka naga boobayo macaylaanigi bayna bareen Soomaali galbeed ama Ogaadeniya waliba Ogaadeniya kuwa joogana waan ugu dhibaatada haysata iyo dhibto ku dhacaysa kuwan Soomaalidan caadigan waa la socdaa maalmahan farxad bay ku jireen tamaashaad bay ku jireen runtii oo madaxweynaha ummadii Soomaaliyeed oo dhan u kacday oo haday tahay maamuladan Puntland galmudug ummadii Ilaahay oo deena magaca marka qofka magaca la siinayo arshiga laga soo bixiyo samada marka dadku qofka jeclaanayaan ayaynu arkay balqaybta Ilaahay horta Muuse aan soo daadagay Djibouti walaalayaal markuu tigi rag iyo dumar wallahi ma dumarka qaar xanuunsanaya baa ku jireen waxay qorayeen dadka Djibouti waa dad xun maxaa Ismaaciil Margeele mucaaradkayga daba dhigo muusudan sameeyo xitaa shacabka afligaada loo geysto xaaliya boloshiis baa anagu markasta ka siinay shacabka walaalahay website-doodana way qoriyeen bal inaa xitaa website-dooda maskaxda loo gumeystaan idin sheegaya waanu bir horena kala soconay kuwaas macayla website-dooda TV-yadana dee bir hore la qabsaday oo iyaguna waxay u shaqeeyaan kuwa way ka adag yihiin oo shaqadii ka joojinayaan oo dee risqan yar iyo waxan yar yarinayaan ayaa laga joojinayaan bal maanta dhan saasaan u fiirinay wallahi inaanu mid quro oo qoray waliba kuwan website-da madaxda waa ee wax soo gelgeliyaan waxay ku nool yihiin Ingiriiska iyo Mareykan iyo warbal dadkan maskaxdoodii la fooriyay Muuse Biximaad sidii loo geliyay Ismaaciil Margeele baa sharfayba waayo airport-ka Djibouti sidii quruxda badneed loogu soo dhaweynay iyo wixii loo garaacay iyo ciidamada xitaa salaanta siinay Ethiopia kuma isin waliba wuxuu u diray ninka la yiraahdo Allah musta'an Ismaaciil Margeele wuxuu u dirayba ونما بودري بقى صوت علي وي موقتها يدرى وشاركي كوفي اللي قد اللي قد دوغي مانتا إنه قبل يكون دوغين دقمين أنا روبري نكا صاحبها مساعد حليا روح يسوي شيء دي وروجا يسوي شيء دي سي والله وروجا ما ترى والله صعد أساسا ويجي إسماعيل عمرقين وشر في مصبر طبعا أنا رجع على الحدي دي وحلا كده حجيبه ومركو ورانا إسماعيل أنا كمسي فوقانيو خرج كي شجعان تانية شجعان لانت يهك باللانت lacag badan baa ku geliyay dabcan oo la socniba si guud oo la socnay ku yaree fooraan ugu dawlad wuxuu ma akhristay wuxuu u diray ra'iisul wasaaraha Djibouti ayaa soo dhaweeyay yaa loo diray maanta amxaarkan hayla maryan daselame cawaran in la yiraahdo tijaar cawarka Itoobiya haystay ay ka soo cibaadaystaan isaga kuwa kale maamul goboleedada Cabdiwali Gaas kamid yahay ee uu dhamaantood kamid yahay soo diray wuxuu soo diray ina yaro wasiirka arrimaha dibadda wax lagu magacaabayo amxaaro waa bahdilayinde macna markuu diyaaradda ka soo degay waxba looma tumayo wax yar oo baa loo dhigay meel yaro wari iyo wasiirka gaadiid bal ilaahay baa idin ku dhaarshay iyagoo ka hadlaya markii dambana calanka Itoobiya la doo fadhiisay ilaa isaga calankiisi iyaga calankoodii ka cararaya fartamooday hargumaysi ee bahdilan ee ilma xayawaanka ee cuqdada caruurta ku abuura ee aakhirina cadaabta lagu fogeynay waa ummad walaala oo muslina oo dad islaama karaamadeeda ku ciyaaray magacii reesh asxaab bay bahdilin magacii Soomaalinimada iyo qabkii Soomaalnimo iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed ay baabiyeen jawaab bay sheegtaan mujaahidiin baan nahay war sabab nimankan waa nimanka la dagaalamaysan idinma ilaawin masxafiyadooda way ku akhristaan Maxamed Kaahin baan hadlayaa Musabici haddayna waarano leedin falinde Itoobiya way idin waraysa bariga karaama lahayd sharaf baa lahayd markii ay sabab dagaalka ku jirteen maalintaas ay mujaahidiin ahaydeen waxa baa ku dagaalamaysan oo dhul Soomaaliyeed laga haystaa u dagaalamaysan oo waxa la dagaalamaysan ninku isirnaa laakiin maanta markaad kiis hoos geysay ninkan hayla maryan daseelimaad hoos fadhida tagrayu ka marqaata waa tagraya xitaa xisaabta ku darsada war tagrayu 30 sano la dagaalamay ama xaarada isugu tagtay dhamaantood oromada laysa waxa laayay kuwa kale la yiraahdo xabashada de waxaan ma kala qaaday waxaan Itoobiya dagarodan waa kuwa Soomaaliya midnimadii Itoobiya ka shaqeynayaan idinku waa bahdilantino calankiin inta ka cararteen ayaa calankii Itoobiya leeyin daba fadhisay hadaba xiniyii shalaytaad ku dhaliileysana ku caayisay Djibouti ku caayisay reesh asxaabo walahi dhamaantood isku indarayaan maanta maxaa wala soo bixiyay macakuina qurbaa jooga rag iyo dumarba arka la Itoobiya hadaa ragtiin
oo aad niman xiniiratiin carwa kaasay maca facebookyadiina waxaa kaga hadashaan etoobiyada bahdishay muuse biciga mujaahidka moodaysa in lahaydeen waa mujaahido waa geesi oo sida ciyaalka yar inta halkaa la soo mariyey ina yaroo wasiir arrimeed dibadeedoo mala aniga bay leego dee ninkaa dowladdiisii laakiin iyo sharafta hele ilaa aniga dowladda iyagaa naga baabiya anagu imika wasiiraan noqon lahayn wuu soo dhaweynaya wasiir gaadiidku ee calankii etoobiya la daba fadhiisiyey waad arkayseen madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo sawiradiisa halkaa ka eega woolkaygaa ka eega gabka iyo sharafta iyo karaamadu waa hibe ilaahay bixiyo la yimaada hankii soomaali waxba nooma ogola soomaali baa sidana haddaydaan la imanayn oo soomaalinimadii amxaaranimo ka jeclaateen oo amxaaro daba cararaysaan soomaaliduna waxay la soo doranaysaa calankii iyo dowladnimadii war caasimaddaa lagu ogoli ra-iisul wasaaraha lagu ogoli madaxweynenimadaa lagu ogoli annagii baadna bahdishay haweenkaygii baad bahdisheen magaceegii iyo sharafteedii iyo karaamadii reeshik asxaab baa dhulka geliseen ummaddan kale waqooyiga iyaan dusha layska saarsaarin dadkan waqooyi degan in yaroo fara ku tirisa mooyaane oo la yidhaahdo macaan jecel sida wasiirkan biyo ee hadlayay maalinta dhaweede ninkan dhulbaantaha iyo wax adugu dee waa qaar iyagu macaan jecel ah oo qabkii ka dhammaaday oo raganimo badanaa lahayn dadka waqooyi walaal yaan dusha layska saarin waqooyiga annaga mooyaane annagana siyaasiyiintii baa naga xumaatay macaal culimadeeda wallaahi way nala soo xidhaano anigoo halaa ka hadlay cabdisamaan bay u dhahdaan boqolkiiba 70 waxaad ka hadlaysaa jarbaab ilaahay kaa sinaya waa kanala hadliba karnaba aadan sunne me ilaahay baan idinku dhaarshay bal ninkii la odhan jiray sheekh aadan sunne ma dad buu laayay ma dad buu dhacay ma dad buu laayay hargeysa wuxuu u xidhan yahay ninkeer la yidhaahdo inayli iyo inayliyaa maxaa la soo hadal qaaday kuwaasaana bahdilaa haddaan reeshka asxaagnahay hal gumaysi la yidhaahdo ee muuse bici ka wada ka yahay ee uu maxamed kaahin labada ka yahay ee maantana isu wada raacay adisaaba ee waxaan kuudhi imikana la baxay bal xitaa waxay israacay baan idin tirmay waaba hagbadlandi hagbadii oo caadiyaba sheegaanta waxaanay ku sheegaan ee lagu aaminsiiyo qolyahan barigana qolyahayaga xitaa barigana horta reer bariga walaal dushayaan la iska saaray war nimankaa reer sool iyo sanaag soomaalinimay jeceliin laakiinse dabcan waxay noqdeen gobay liico ha jabin dee waa dhibaatadii soomaaliya ku dhacday baa iyagana ku dhacday samaroonna ma ogolo waxan gabooye ma ogola ciisana ma ogola in reeshika saxaaqoo nimankani waareen munaafiqiinta oo karaamadii iyo sharaftii soomaali ummadii ilaahay bay nagu direen macaan wallaahi inaan gebiyeego imka qofkay saar macaan anigaygaa cabsanaan maantaba haddaan saa wuxuu akhriyay qaar baan ibi aaminayba odhanaya war nin maraysaaba maaha waayo dadkiiba sanafobia hadee jeer soo afrikayaba waxaan maqli jiray sanafobia oo cunsureed ummadii ilaahay aan walaahay ee xididka xigaalka qaraabada qoyska ahy waxaabana looga dhigayba waa naloo bahalgeliyey soomaalida kale imka hadday arkaanba qof isaaga xodhanaya waa ninka daa soomaali diidkii soomaalidii u nicibiye war ma nibicin war noocan baana qabsaday maafiyada annagu soomaali baa nahay inta soomaalida jecel baa ka badan intan maafiyada isaaq walaalayaal dad dun wanaagsan bay ahaayeen karaamadeedii sharafteedii waxa ku ciyaaray 4 tuug ee maafiyada ee odayaasha bal etoobiya ay dawarsanayaan maanta oo dekadii bay siiyeen waa la bahdilayaayo meel yara miskiina baa la fadhiisanaya ilan waxay soomaalidu ku maamaadaan lax kasta shililka isbitaal lagu qaraa kama hadli karaan warniga u qabyaaladu xumaa oo bismillaahi ilaahay ow rabbi ow raxmaano waa saacadii dambe ilaahay ow qabyaalad baan kaa ducaysta allahay ow raxmaan ow raxiima waayo waa xanuun sida balwadda oo kalaa oo qofku aanu iskaba daynba karinba runtii oo u arkaya qofkii aad ku leedahay war weynu bahdilanin war dekadeeniya amxaara haysta war amxaaro markaynu wajaala ka tallowno hooyooyinkan bay dabada ka laadan iska daa hablahoo islaamaheenna gagaboobay kuma ixtiraamaan hargeysay ka timi burcay ka timi dekad bay idin siiyeen kuma ixtiraamaan wallaahi bartaasay laa dabada u qabtaanoo inamada yar ogaadeen baa lagu borogaray waxay kudheen war ninkani ogaadeen maaha ogaadeenka saxda waa ka dagaalama ninkan orod ku dilaya haweenka markuu ka talawdo ee meesha la yidhaahdo wajaale adigoo ogaadeen iyo soomaali qabiil islaamika maanta joogta u caayaysin dee ciisa iyo jabuutiyaankii maantaydaan waxba uga sheegi karin meesha la yidhaahdo etoobiya ayaanu ninkan u ahayn alla yaaba ninkan la yidhaahdo ama new booliskii waxan ma aha soomaali sax waa amxaar fikirkiisu ku shaqeeya markaa maxay ila taraan etoobiya khamri bay noo keenaan qaad bay noo keenaan innagiibaa weliba sii hoos cararayna maxaa u diiday war soomaali baad ilaahay karaamu ku sii qof muslina baad gab baad leedahay sharaf baad leedahay amxaarkii u reeyay dulliga ahaabaa ku bahdilaya soomaali oo dhan baa suda raacday bal xaasnimada maanta intaa leegayga walaalayaal billah calaykum soomaali oo dhan baa maanta faraxsanayd
reer galmudug baa madaxweynuhu soo dhaweynayey reer puntland baa soo dhaweynayey kuwii kaleu kusii socdaa hirshabeel uu kusii socdaa baydha buu tegayaa soomaalidha baa isku faraxsanayd amxaar baa loo cararaya war balgab waxay nagu dhacay dhibaatay nagu dhacday amxaar baa loo tegaya masala waxay isku raacayaan weliba wallahi niyo mararka qaar iskaba amaro soo waxan in la laayo mooyaane wallahi inaanay dad caadi noqonin in gebigoodaba suusaa loogu buufin waayo waa xumaankeydiyaalba madaxweynaha maanta qorshe ugumay jirin xitaa deegaanadii sool iyo sanaag ee soomaalinimada jecla inuu yimaadaaba qorshe ugumay jirin tukaraag baa la isku laynayaa waa nacayb baa la abuuraya moogto waxaa la isku dirayaa bulshada walaalaha reer puntland iyo bulshadana halkan degan reer somaliland iyo walaalaha isaaqee daarood baa la isku dirayaa waxay danqayaan booga beri hore la soo dhaafay ay nimankaa waaweyne ka ugu yar 70 jirka ama 90 jirada waxay damqaan war xagee dunida lagu arkay jarmalka maanta faransiiska la dariska wuxuu ku sameeyay faransiis you can imagine afkayga ma soo marin karo wallahi inaan afkayga soo marin karin jarmalku markuu faransiiska qabsaday wuxuu macaarigooda ku sameeyay haddana maanta dadka jarmalka faransiisku ma cusuradeeyaan kamana hadlaan basaskay la saarayeen shaqooyinkay la wadaan cid iyaguna waxay ku dhagan yihiin beri baa saana lagu sameeyay beri baa niilidin siyaad bara war siyaad bara soo kidintay ilaahu naxariisto cali samatar soo kidintay ilaahu naxariisto dadkan shaqa kale nimanka markaa wala hadaad sii fiirstaan kuwaas ku mashquulsan Soomaali qofba wax ma loo diray aniga kuwaas la diro wallahi ma cali khaliifka la yiraahdo waa munaafiq kale bal waxaan xasuustaa meesha la yiraahdo xarar ninka la yiraahdo cali khaliif ee maanta la shaqeysto waxan iyo xun oo dhani qolo marka la ee waa isku qoro ma kala daarood ma kala hatta abdul gaas ma andu waa doontaan soo xabashada ku sii carreey laakiin kuweedu way ka sii xaq jiraan badii oo iyagu nacayb caadi ah bay abuuraan kuwan iyagu baraabi dheerin ba abdul gaas iyo cali khaliif bal meesha la yiraahdo cali khaliif wuxuu maalin ka gudbadeenay saasaan u dhageysanay anigu shaqo kale ma hayo awal horena waxaan wala socday meesha la yiraahdo xararanka ninkii garanaya baa garanaya waxay ku taalaa dhulkan neeliga siiyay amxaarada ee reserve area xuduud beenbeenaadka Itoobiya ayaa maray buu hoday ka sugaysan magaalada galbeed ka soo xigtay xaran waxa la yiraahdaa coodanle waxa degan reer qansaxayga ay xaranna waxa degan reer quraacan uu ka soo jeedo cali khaliif kale marka reer quraac buu qodbadeenay wuxuu ku leeyahay reer quraac waa cali khaliif ka maanta tukarad jooga dadka isku diray reer quraac cadowgiinu waa kuwan coodanle degan dhulkan inaga naga qaado waa nacayb dadka isu galneeyo maanta dan buu lahaa anu waan faahsanaa markaa or dadka muxuu isugu dirayaa tro okay wadoogeedan Salmaan xaylo toosi waa lamid war waxan waa munaafiqiin ninkii nooca ah dadkii baa la isku diray shacabkii haweenkii dadkaas waa dad oodu wadaaga xoolahooda wada daaqa way kala guursadaan waa inaan yaabtigi dadkii madaxu isu galiyay waa la isnacsiiyay shacabkii markii shacabkii la isnacsiiyay ee uu shacabkii isku garaacay ee isagu jeedo lahaay ujeedadiisii filinkiisii hawlihiisii dhamaystay ayuu si cali wuxuu hoostagay ninka la Faysal Cali Waraabe dambiile musabixi dambiilaha kale weyn silaan la yiraahdo war waxaan ilaahay baan ugu jeclay waxa ma jeclay idinku ma laha rasuul waxa uu tagaana asnaan baadu caabidaan silaan waa dambiile musabixi waa dambiile Salmaan gal waa munaafiq kale si weyn cali khaliif waa dambiile number 1 kale la yiraahdo Abdul Gaas waa dambiileyaashu ku jira waxan waa munaafiq oo dhimaantooda munaafiqiin waa ka maanta cali khaliif dagaalka isagaaba oo loo sayro oo la habisay ku jiraba waxa la sheegay maanta gambara iyo mesha yalla isagoo la saacado xagga u dhaafay oo le hala dagaalamo maanta reer Buntland xitaa ma xishoonayba waa bixid kuwaas u leeyahay maanta hala laayo cadowgeenu waa kuwa waa beenahay war waxa aniga inta noolahay kuwa wallahi hadal baan nala ka hadlaya inta noolahayba hadii ilaahay nafta ugu simo haddaba maanta aad sabaysaas ku raacay oo hagbadlaan leeyahay wuxuu ka haystay waa isaga oo madaxweyniyo sheegaan number 1 wuxuu kaloo ka haystay mid maxamed ka in la yiraahdo wasiir arrimaha gudaha oo sheegaan number 2 waxa uu kaloo ka haystay mid wasiirka arrimaha dibadda waa sheegaan waa number 3 waxa uu kaloo ka haystay channel mid lagu sheegayo oo ciidamadan amxaaraysan ee iyagu haystaan u channel oo la yiraahdo nuux taani waa sheegaan tayaa kala la socda waxa ma garanaya waa wada sheegaan hagbadlaan balka qarankii xitaa qabiilkii intay sii kala dhileenba anagu marka hore qabiila ay qoysi noqdeen wadika arkay meel dhowto waxa salaadintu ku hadlay sheegaan baan la yiraahdaa sida ummadan hadaba la waalay ilma xayawaanka ayo walaydin waalaayo waxan waa qabiil oo qarna noqonayso qadiyadna ma qadiyad Soomaaliland ku dhinta waa maxaa dawladda afartan maanta amxaarada uu hoostagay amxaarada dawrsanaya
dabadhilifka ayaa kabaqaadka amxaarada waa isku sheegaan waa musabixi meel ku qorta waa sheegaan waa maxamed kaahin waa sheegaan waa ninka la yidhaahdo sacad cali shire waa sheegaan waa nuuc taani waa sheegaan isaaqii kale xitaa isaaqii kale cunsurad lagu sii sameeyey iskabadaaba dadkii meeshan la deganaa saasna waxaa la doonaya in horumar iyo dowlad iyo qaran iyo waxaa lagu noqo war xaasnimada iska daaya war bahdilaadana amxaarka u bahdilantiin iska daaya war soomaalinimadiina dhinac ka raaca war war karaamadeedii ha ku ciyaarina war ummadda soomaaliyeed waa na maqlaysaan waxaan kulama soconno nimankani meesha khasab bay ku qabsadeen 1991kii baa heshiisyo beenaada wedinkii maanta arkay ka la yidhaahdo professor samata shir baa meel baa adigu dood lagu qabanayay dad u badan reer waqooyi oo ka soo jeeda gobollada sool sanaag awdal togdheer su-aalay weydiiyeen anigaygaasaa qaba xitaa su-aasha waxay kugu soo celinayaan walaalayaal oo inta badan dadka ugu soo celiya laba dowladood wanaag waayahay anigaaba fikraddaa qabay labadan dowladood markaynu ahayn calankii hargeysa laga taagay 1960 June 26 June 26 June 1960 calan sideeyo aha tan labaad markana leeyihiin ma guumeystaa wax naga dhigay mise ilaahay bayna abuuray oo wax naga dhigay guumeystu meel baarlin ku shirno Afrika qaybsan oo 1864 ayuu guumeystaa wuxuu ku shiray meesha la baarlin Afrika lagu qaybsan Soomaalidu dad jiray ah ka Djibouti jooga maca iyo ka jooga NFD halka ugu dambayso wajeer iyo macadul laga qaaday oo Ethiopia haysto kaba shisheeyay la jiga dad nool bayna inoo jira ma waxayna abuuray Ingiriiska bayna abuuray miya oo ina sameeyay soo waxayna sameeyay Talyaaniga odayga xunay xayawaanka iyo kaan taariikhda oo qoonay dadka u soo qaata in laba dawladood bayna 60kii bayna kala qaadan warada 60kii ka hor Soomaalidu way jirtay guum adigu 60kii baaba ka hadlaysaan 1864kii ka hor Soomaalidu way jireen dad siiqaan bay ahayn dad walaalaabaan dhaqan iyo dhiig iyo wax kasta way ka dhixiyeen saasuma Soomaalidu xidid iyo xigaal way waxaanay ahayn hal qoomiyad gaalada inoo timi xitaa waxyaabaha Soomaalidu u kala qaybiyeen waxa kamid ah waxay arkeen dadkan faraha badan leh ee halka qoomiyadda ee isku dhaqanka ee isku afka ee isku midabka bisana wadulka intan leeg bay leeyihiin dadkan keligooda hala kala qaybiyo bar Faransiis baa ka haystay oo gooyay bar Talyaani baa gooyay bar Ingiriiskiisna difaydaan rule ee xagan waqooyiga gooyay bar kale Ethiopia waa timarba in laga daray bar waa Kenya markii dambe la siiyay marka waxaan anaga aad lama sameyn nama sameeyno Faransiisna nama sameyn Talyaanina nama sameeyno taariikhdan ka muusan taariikhdan wadana aad ciyaal ku shubtaana waa been 60kiiba laba dawlad waxa maynaan ahayn kuwaana Talyaani baa haystay oo gumaysanayay waqooyina ragan xitaa aad ku doodaysaana leedihiin dhulkan xuduudka anaga ah noo guura war iyagu ma yeelinba runta maxaa ugu barbaaraysan nimankan daraawiish iyo sool iyo sanaagii meelaha degan Ingiriisku waa la dagaalamayeen daraawiishtu maxay qabanaysaa daraawiishtu hada real dhulkooda Ingiriisku iska calaamasaday laakiin manay raacin may taabicin uma shaqayn dagaal baa ka dhaxeeyay waa kii macaysiidka xabada waa ka dhaxaysay oo kii markii diyaaradaha ku soo kiciyay gardarada umada ka daaya oo cadaalad darada iska daaya idinkuba waa dhicibtiin waxa la hadlayaa waxay nagu shubaan nimankan isaaqay beenaalayaasha kidaabta waxay nagu soo celiyaan waa niilalaay dhibaataana loo geysto ma arkeen iyagu dulmiga dadku sameynayaan ninkan aad gurigiisii ku haysatid alla khasab igu soo raaco Soomaaliland ku noqo Soomaaliland daar maaliga sameeyay isna muu sameyn adiguna ma sameyn guumeysto xun bay noo yimiyo dhulka Ilaahay Soomaaliland wax ku calaamaday waa Soomaaliland waligood way deganeen maxaad ka sheegaysaa Soomaaliya sanad war beer bay deganayeen dadka aad haystaa xilligii guumeystii iyo waxay noo yimaadeen beertan burco dhow bay deganayeen burcay qayb deganayeen aynabay deganayeen waba si turka sayba imikana dhulkan iyaga deganay Ilaahay baan abuuray kamana gaxan kartid ciidan yaro beenbeena oo golaada in leedina doodo oo golaada dadka raydo oo golaada haddii kale wixiinu waa jarsko xor iyo been waa la isagay maray Soomaalida koonfurtana waxa la dawladnimada taageera dawladnimada la shaqeeya anaga halkaas dib noogu jirta waa nimankan waxay ka faa'iideysanayaan dawlad la'aanta koonfur ka jirta iyo dhibaatada Soom ay marba xabashada u kala dusayaan oo ay dadka u boqoojinayaan mas'uuliye sanaag bay haysanay mareera awal bay haysanay la xisaabtama bal oran daada reer anigu midnimadan doorna ma anaga haysanay maanta maxaa adbaal ugu xidhaya maxaa aniga xabsiyadan ay leeyin cabsanaan jidman murtid buu noqday war murtidka idinka murtidin oo gaala yaran murtid buu noqday waxaan u noqday inta xitaa qaar qoxontida meelaha joogo ma xayawaan
carwaad kaasi haddaa rag lagatiin wadikii maanta luu talaa Jabuuti waxay daba dhigtay ninka la yidhaahdo Muuse Biixi calankii Jabuuti waddo ka hadla xabashada ama waxa weeye ka xabashada ka si daranba inta Jabuuti waa weeraday wadada isku afku hadalno wadada isfahmayno maxaa xabashada uga hadliyay guriyina galo seexda dawaaca maydha ma ay weebatine dadka la nabad geliya isaaq wada hel iyo Somaliland iyo niicada reeb ama aynu garteena akhrisano oo wixii garta inagoo xaq u leenahay aynu doonano oo Soomaaliland waxna la qaybsada ama qaabka madaxweynaha ama ra'iisul wasaare sida rag aynu doonno oo nimankan iska qabano odayaasha beenaalayaasha ee meheradaha haystay doonaya inay kaligood noolaadaan ma doonayaan in madaxa la soo kacay war maxay caafimaad kaaga qabtaan maxay waxbarashada wax kaaga qabtaan maxay infrastructure iyo wadooyin wax kaaga qabtaan dee waxba iyaga doonayaan inay kaligood noolaadaan haddaba waxaan cugdadan aynu ku abuurayo amxaar ilaa qarnigii 15aad uu ku nibcaa walaano ku noqon maayo dhulkaagan ku soo dooday inuu seerac qaato doonaya inuu ka qaato hargeysu doonaya waaba ku doodaanba inuu burcaadigo soo taagay ka qaato doonaya inuu berbera ka qaato doonaya Soomaalinimadeena inuu ku dooranayna dadkan deegaankan la degana inagoo isku duuban iyo inagoo macaal kaligeynaba Soomaaliyiin wax ma tirsanayno Soomaali weena dhaahanaysa aynu sida raganimada u hadalno laakiin haddana aan waana la dilay waxaana lagu sameeyay Soomaali ma nihin waxaas waa full of nonsense Soomaalinimada in miiskooda hanayno furan xisbiga xisbiga midnimada haddii kale wallahi iyaguna been bahala ka shubaan qaar bana cabsanaana maxaa dee iyaguna been baa ka dheeraysa been anigu ma sheegaan run baa la daba taaganayba iyagu waxaanay ku hadlayaan waa been caqli shaqeynayna maaha garasho fayowna maaha dowlad kana samaysanaya reerbeed dowlad samaysanaya adeer waxaas waa incredible waa been waa dreaming way waxa la dreaming life dadka xashiishada cabo khalaas daawno caadi noqda 7 sano kulay ayaa been leeyin ku shubay beentan leeyin ka soo dhaqa waqti bay qaadanaysaa war waxaan suuqiin kala qaadqaaday imka ninka la Faysal oo ciyaalku laabta oo garaada aan taariikh ba garanay talabaadna 20 meelaha sadasha soo dhanaya Somaliland waa muqaddas Somaliland bayna wani kan Faysal aan waraabila Maxamed Saab oo la qaxayba ilaahay una xariistay buur la qaxay waana meesha wuxuu joogaa waa dilaal buu joogaa dekada la iibinaya cid laga karanaya boqolkiiba kuna dororsiya uu qaadanaya halkana haamaha wax laga karanaya shidaal maalmo yara qeynaya war inta qaado ko tukun qaado waa loo dhiibaya waxuu yara qeynaya guri baa loo dhisay waxaan ina waalaya ilaa macaal kale hada cibro waa isku mid marka dhalinyaro maskaxdiina furta hadaa doonaysaan de inama yaro takrayo amxaaraan iyo oromo iyo ureed dusha sayid keekaaja marka wax ku soo barataan meelahan dunida ku soo barataan sida Hargeysa burcataga waa soo Falastiin lama qabsan oo Falastiin Israa'iil dush kama haysto wallahi saasa ku dambeynaysan hadaa ka hadweydaan nimanka beentooda iyo propagandadooda niyadda qalbiga ka diiday insha Allah ta'ala waan ka guuleysanina Soomaali baan nahay Soomaali baan wax doonaan Muqdisho markay qaato waragana taasi ku jirta Muqdisho iyo koonfur markay wax qaato inaguna qeybteena qaadanayna dowladnimadeena iyo Soomaaliyeed sharaf ku leeyahay waa la baabiinayaa insha Allah ta'ala maca 4.5 dewana way food baa la galaya ninkii hanle ee qabla competition la yimid oo candidate han noqdo musharax han noqdo laakiin halkaas aan la soo keerlayo ilaahay mu qabiilku doonaha mu gobolku doonaa soo jeedo dunida horumarka saasi ku gaadhay miya taqaanaan madaxweynayaasha dhimka dunida ku nooshin qabiilkooda ma taqaan Yurubawda joogtaan xataa maskaxdooda ma furneen qabiilkooda ma garanaysan meelay ka soo jeedaan ma garanaysan ana imka halkan madaxweynaha waani yaro dhalinyara qabiilkiisu waa 9 imku mala 40 kii noqonay qabiilkiisa iyo gobolkiisa cidna ma taqaan dee dad uu leeyahay wuu tartamay sharax u noqday raka burjuwaasana oo siyaasadda dhowr iyo 40 sano ku soo jiray ayuu ka guuleystay marka adigoo Hargeysa ka soo jeedo oo burcad soo jeeda oo ka soo jeeda gabiili haddaad qabka iyo hanka la timaadid yaa ka hor istaagay oo Soomaalinimada sharaftaada la timaad madaxweyne farmaajo reerkiisa doortada maanaysa Soomaali buu la tartamay qaar isku sheegay inay yihiin kuwan maanta qisqaan qaadaya wax noocaas ayaa ka guuleystay oo doorashada ka yaa leedin bahdilaadu qabkuna wax qaalaya bahdilaadu waa maanta amxaareen oo gisi ee amxaaro hoos fadhiya ee gidaarka la daba fadhiisay nin gidaarka daba fadhiya ninka kalena caalamkiisa sista madaxweynaha waa arkaysan madaxweyne farmaajo martaani oo fiirsada oo caqli iyo garaad waa karaankeyga anoo kala sanadera madaxweynuhuna caalamkiisa ayuu beriyahan ku dhaashay karaamada iyo sharafta leedin waa halkaas madaxweyne farmaajo caalamkiisa soo saaray
ninka Etoobiyaanka maanta bilaadhiig baatiin oo xayawaan baatiin ninka Etoobiyaanka maanta waliba ma aha Tigray ma oo markii meel smash ka baxay ayay kan meesha keenan iyagoo kula dagaalamay nimanka kale amxaarada la adeegsayaan laakiin ideology iyo fikradu ku shaqeeya waa Tigrayga markii hore ku xigeen buu ahaa shabaabti Tigrayga oo la soo dagaalamay kan hayla marin daseelam laado waa qoomiyadaha reer Ethiopia mid kama walaayta ama wax noocaas weeyaan waxa looga taliyaa meesha la yiraahdo Allahu musta'an meeshan Tigraygu digan maqale oo fikradaha niman guurtiye bilii war marka balkaase calankiisu daba fadhiya musabbixyo ka sharaf badna waliba calankaas oo soo bartay musabbix wariya maxamed keen ka soo bartay korneelnimadiisi ya darajada ay ku yeeray markuu diyaaradaha la bariyo loo diray Soviet Union ki burburay xaga Yurub tabari iyo markii loo diray meesha la yiraahdo Mareykan calankana wallahi uu salka ku sitay maanta gidaarkaas la daba fadhiisay kala gidaarkaas oo daba fadhiya isaga kii Etoobiyaanka halkan daba fadhiya talabaad markan kulay waxba leeyahay Tigrayga calanka Ethiopia kor u sidee saawaad keenay 30 sanadood baa macaa diyaarada lagu garaa kaarayaal baa la jirsi beebeyaal la jirsi gabigooda wallahi wuu soo joog wallahi inaan been sheegin waliga wali ilaahay ku dhaartay Allah arrahmaanka ay qafur rahiimka ayaa wallahi aakhiro maraga ay furaya wallahi markay qabsadeen Tigraygu ilaa Ethiopia wallahi meesha la ramsan jiro yahaadi baa loo dhigay annagoo yaro markaa macaamada iskuulka dhigan digriinkii waxaan dadaban jiray kuwii horabaya ka soo xumaaba gabigooda ma soo dagaalamo mid lugla mid gacan go'an tahay mid haddana nimankii dhibta inta loo geystay waliba buuraley ku dagaalamay way ka caqli bateen Soomaalida iyo sinimiyo wixii loo jiray UNC Ethiopia ka shaqeeyay midnimadooda dawladnimadii adsaamay burburay xitaa ninkii loo jiray migiista laga qabsaday meesha imkana ku noolaa markii ugu dambeysay Zimbabwe qarankaas oo kale iyo diyaar ay Ethiopia ka qaatay wuxuu waru celiye qarankan maca Ethiopia ay isna halkaas oo irsal ku joogaayo magangeliya laga sii inagana maxay sameeyeen irbad kamay tagin wadaniinba ma ahayn siyaab runba afkiino geliye wallahi waxaan aad ugu faraxsanahay islaan reer cadaadahay waa nin rag qaar imika dumarkaaba ka maskax badanba maamo reer cadaadahay oo ka hadlaysay xafladii madaxweynaha loogu qabtay magaalada Cadaado ee maamulka Galmudug oo lahayd mujrimiin ku siyaad baradalka hayay warba gabigooda warshad kamay tagin macaasibkii daamulkii bay qaatay irbad meeydin caafimaadkii dawooyinkii way boobay dadkiina way laayeen dadkii laftigiisa maca way laayeen wariyaas ku indiray markii 1994 waxaan doonayaa walaalayaal inaan runta ugu celiyo war 1994 iyo 1991kii daydaygii dagaaladii sokeeyay saaq gudihiisu isleeyeen kii 94kii kii burceesta casho soconayay maca PM kale isla dhacay masiyaa brain la joogay kuwa maanta amxaarada u dulaysan ayaa wallahi isku indiray imikana wallahi kuma jecla waa ismad wallahi baynaana jeclayn dhalinyaro mustaqbalkeena kaga ciyaareen hadalka uu ku helay maanta dhooto kama suldaanka waa musabbix waa dhab waa wax qalbigiisa iyo niyadiisa ka soo go'ay markuu leeyahay sheegaan bay meesha ku haysanaa qabiiladu ku haystaan waa runtii dawaa runtiiba laakiin si waa run haddana wax lagu dambasayo qolyahan anigu aan ka soo jeeday reer qurac waxa la jiray sabigiyo dhalaanka lagu sasabaa waxyaabaha yar maalayacniga waa sida sabigiyo dhalaanko abti alban nidin inta reer daahirina ka dhasho arada naga tar reer isaaq baan isku nee agada aniga maana abtiit misaaniga inankan abtiga waxay xagaa abtiga abtiga day saaqnimo ninka isaaqa saaq abtugu noqota ana reer daahire baro suldaanka yare iska waashay adar cibba suldaanu tayaano salaadina waa leenahay qabiilkeegana mid khaladka naga daayo haddaan cidda khaldi karaysa khalade kuwa habar jeclay waana maalayacniga khalad inanta reer daahire inanka dhasho abti baan ku dhahay waa aqliga iyo garaadka reer Gibil iyo musabbix iyo cidda uu ka soo jeedo iyo waxaan lagu aaminsanay kuwan burcay boorku sidaa iyo siigadu sidaa u jirdhay ee aan garanaynin horta dawladnimada maxay idin qabtaan muxuu silaayay idin qabtaa muxuu biyaay idin ka qabtaa muxuu wadooyinka idin ka qabtaa muxuu caafimaad ka qabtaa waxa lagu aaminsiyaa wallahi inay dad fiican baa jirsadaatiin waxa war adar dunida waa la dhaafay qofkan wuxuu ka fikiraa arrimaha bulshada maxaa wax lagu qabtay qaliil dawlad ma noqdo dawladdu dadka danta yar bay u shaqaysaa caafimaadka wax ka qabataa waxbarashada wax ka qabataa wadooyinka wax ka qabataa halkaas aan mid kula soo istaagaya kuwaas lagu aaminsanay imkana waa dhiil hoose in kastoo anigu aan jeclayn maamaha laakiin waan ogeey wallahi waan ka sheegay waan ka sukaya
dhiilay muuse bixii sudaankiisu galeen ayaa wuxuu rabaa inuu ku waalo yidhaahdo gobbaatiin sheegaan baa la isku yidhaahdaa innagaa meesha ka talina madaxtooyadana gebigoodaba clear waa laga nadiifinaya wax allaala wixii shimbirta qoolleyda shimbirta deele maxaa calaamadda bariga burcadde waxba aanu qabiilka afku dhufan maayo waa laga safaynayaa wasaaradahay beriga hore inaan haysan jirin waaxyuu hoos geenayaa dabeetana markay meelaha istaagaan waxaan niyo soo tii suldaanku inagu yidhi dowladda inaga haysana hadda iyagaaba meesha haystay muuto reer gabile waa qaynimada iyo waxa ay ula imanayaan muuto ma waxaan hadda waa iska nooca waxaa la ku odhanaya waxaasaa tir waradeer isaaq baan isku nay adiguna isaaq baa tahay anaguna isaaq baan sheegaantana qabiil maaha sheegaantana munaafaqad bay soo urustay niman kaloo isaaqana lama doonanaa inaynu ku dulmino oo lagu dulmiyaa sheegaanta weliba fuleybeen inagu runtaa ma fiicanba maxaynu baqanaynaa sheegaanta kuwaynu iska sheegaanaysanayna waa maxay inoobadaaba dhulbaanta inagaba daayaba oo dabcan waa nimanka ayagu soomaaliyeed maasha allah eenu deegaanka wadaagnoyigana dee khasab inaguma raacayaan waa soomaali samarruntuna khasab adeer kuma noqonayaan somalilan waxaan nabad baa lagu sugayaa dowladnimo laakiin innagoo isaagaa sii kala guraynaba sheegaan baa la isku yidhaahdaa kan kale yaa isku yidhaahdaada habar walna waa habar wal garxisna waa garxis habar jeclna waa habar jeclo arabna waa arab nin boqoo liita baa yidhaahdaa qabyaalad hoose niic kureega iyo dad isku mida sii kala qaada adeer halkaa ku ekow sheegaantan iyo niicdana raggii sameeyey baanu garanaynaa kuwaasaa sameeyey munaafiqiinta silaanya saleebaangaal iyo furiye baa sameeyo niman libaaxyaa bay ka baqanayeen runtaa fiicantay wallahi abtiyaashay waa libaax ilaahay hadaayo markay doonaan waxay dhaha waranu soomaali baa unay laakiin waxaa helay iyagana bisdaa helay bisday surursaday oo iyo curriye ay surursaday curriye iyo bisday surursaday oo kudhaan sheegaan oo beenayaalo macayagu sii khiyaamaynayaba war calankaasaa leediina kaa ku soo baydha intaa ku wareegaysaan sheegaan iyo niic iyo waxaydaan loo baahnayn iyo qabyaala waana gunnimo taa maanta aad saba ka dhacday unbaad ku dambaynaysaan wallahi xabashi baana aakhira idin diraysa laakiin ogolaan mayno ma ogolaan doono insha allahu tacaala halkana kama qaylin doono dalkuna wuu noo hagaagayaa caasimaddii muqdishona way noo hagaagaysaa soomaali dhanna way israacaysaa bartaasaan kasoo afuufaynaa 4 gaadhi oo xabash idin soo siisay marba tukaro ku sii eriya oo ka soo eriya waxaan adar wan fahamsanahay amxaara imikaba idin yaada odhanaysa maalin joojiya raganimada iyo xiniyuu maaha inaad amxaar ka amar qaatid oo aad soomaali la dagaalantaan taa soomaali baan la dagaalamaya adigoo amxaar u shaqaynaya ummadda ilaahay waxaan leeyahay walaalayaal soomaaliya ha midowdo ha israacdo allah raxmaanka ummadda tawfiiqda ha waafajiyo cadowgana sida jinka ula dagaalamo inuuna sheergaray bilaa calaykum waayo cadowga soomaalida ka xunba cadowga amxaarka waxa ka xun kuwa xun xayawaaninta maalinta dhawoodna ka hadli waayey ka hadlayay jabuuti baana xumaysay jabuuti baa sidan imikana kama hadli karaan etoobiya qof xuno wallaahi waxaa tihiin bisda caadiyad mid kama hadli karo websayday leyn balcari laa biriteega ilaas waa haddaad doontaan weligiin bay eego oo websadana wax ku soo qoraan mid idhaga hada wanaag barco online oo mid maalayacan iyo halkano isna malaa ingiriiska iyo miyi laga keenay baaldhayo meelahaas laga keenay marka hore reer miyi baa jira waa reer miyi midhan baa saan u foornaya soomaaliga waa caadiga markii dawladdu burburtay sidoo isaga aamusnaa ayaa soomaali ku igu litay waa xagga sare soo maray nacas midhan baa xagga sare ku soo maray oo miyi kaymiyo qabyaalad lagu gorgaray oo saacad la geey fadhiisiyay qabiil waxa kamid ah xitaa kuwa qabiilka saacad la geey fadhiisiyay maalmii dhawada madaxweynuhu marayay Puntland xitaa al-abaashu xuma oo xanuun badana wanaag kasta xumaanta urugan imka daastada aayad akhri oo taado waxtasimu bihablillahi jamii'an wala tafarraqu وحرية ما وحاس قبسنا يا عبد السلام يو ميت كلو ولا ليهم با يا ولا تفرقوا ذا نقص عصمته حتى آيات عدم بيبينية حتى تعالى ما المؤمنين يقول حرية ما يعني مؤمنين ولا وحويا وقوة إن تميل كله يقول صاريا مدحوينا ما تدوي ما شاء الله الريبولان أي سودويني قارب أمر كبير قبيل بدري خير كان صاحبه لقوا سودوينية واسكو خير كان صاحب وهير قل مدوم اسكو خير كان صاحبه والله طلبان يوم منافقته waxaan munaafaqada lahaa iyo dadka xun waa isku ba way isbaahistaanba imika kii shaydaan si kooxdiisii ee xumaanta ee xasrada ka shaqayn jiray Soomaaliland iyo musabbix waa taageeraya wari soo ruuxan xayawaanka maalinba meesha iyagu halka xasaradu ay ku jirto oo bay taageerayaan hadii imka xagan la yiraahdo wanaag waa ka meedhinaca kale aadeen wallahi wanu ka adkaanana social media na waxaan soo galiyay inaan gibiga kooxo لا تقال. هذا يا بني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.